Madaxweynaha Puntland ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxudiin Axmed Muuse. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay hoygiisa ayaa ka hadlay khilaafka sii xoogeysanaya ee maamulka Hirshabelle. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo maanta kulan toos ah oo qadka internetka la qaadatay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha ciidanka booliska Puntland General Muxudiin Axmed Muuse kadib digreeto maanta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha. Digreetada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa waxaa xilka taliyaha booliska loo magacaabay General Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare ayaa soo noqday taliyaha nabad sugidda Puntland muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole. Sidoo kale wuxuu soo noqday xiriiryaha xafiiska sirdoonka maamul goboleedyada Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha xilligii xukuumadda Cumar Cabdi Cali Sharmaarke. Dhanka kale waxaa xilalka laga qaaday taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska General Bille Faarax iyo taliye ku-xigeenka saddexaad Gaashaanle Sare Axmed Maxamuud Cali. Mana jirto cid loogu bedelay taliye ku-xigeenada xilalka laga qaaday. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay hoygiisa ayaa ka hadlay khilaafka sii xoogeysanaya ee maamulka Hirshabelle. Ugu horreyntii gudoomiyaha ayaa ka dalbaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre inay soo farageliyaan xiisadda kala dhaxaysa madaxweynaha maamulkaasi Mudane Maxamed Cabdi Waare si xal looga gaaro. Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa ku eedeeyay Waare iyo ku-xigeenkiisa Guudlaabe inay lunsadeen isla markaana ay musuqmaasuqeen hantida shacabka Hirshabelle sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in 54 mudane uu ka qabtay mooshin xil looga qaadayo madaxweynaha maamulkaasi kuwaasi oo ku eedeeyay arrimo ay ka mid tahay ku takrifal awoodeed. Si kastaba ha ahaatee xiisadda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay Jowhar ayaa ku soo aadaysa iyadoo haatan gabagabo uu yahay muddo xileedka hoggaanka sare ee maamulkaasi. Hirshabelle oo marar badan ay hareeyeen khilaafyo siyaasadeed ayaa waxa ay saameyn xooggan ku yeesheen horumarka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Mareykanka oo ballanqaad cusub u sameeyay dowladda Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo maanta kulan toos ah oo qadka internetka la qaadatay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo madaxa hay'adda Mareykanka u qaabilsan dhanka horumarinta USAID. Wasiirka ayaa dowladda Mareykanka ugu mahadcelisay dadaalada ay ka wadaan Soomaaliya ee ku aadan cudurka coronavirus, sidoo kalena kala hadashay sidii ay gacan buuxda ugu geysan lahaayeen gurmadka wax loogu qabanayo caabuqa COVID-19. Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday in Soomaaliya ay ka caawin doonaan xakameynta iyo xal u helidda cudurka COVID-19. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shaacisay in tirada laga helay cudurka coronavirus ee dalka ay gaartay 430 ruux, halka 23 qofna ay u geeriyoodeen cudurkaasi, waxaana dowladda ay wadaa dadaallo dhowr ah oo looga hortagayo caabuqan COVID-19.